بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta halkan waxaa goobjoog ah guddiga abaaraha gobolka Mudug. waxaan rabaa aniga oo ku hadlaya magaca gurmadka qaran ee abaaraha isla markaasna kamid ah guddigan muxuu ahaay abaaraha ee gobolka Mudug in aan ku wareejiyo lacag dhan $10,000 lacagtaas oo ah qoondadii uga soo hagaagtay gobolka Mudug lacagii ay aruuriyeen guddiga qaran ee abaaraha lacagtaas oo runtii labadii bilood ugu dambeysay la aruurinayay geed dheer iyo geed gaabanba loo fuulay waxa guddigu isku dayay in ay meel walba oo dhibo ka jirto gaar ahaan meelaha abaaruhu u badan yihiin wuxuuna ay ka gaarsiiyaan taasoo macnaha wax la'aan dhaanta maadaama la filayay in lacag badan la heli doono lacagtaas badan dadka la gaarsiin doono haddana markii muddadii dheeraatay isla markaasna lacagta soo xirootay iska yarayd waxa go'aan lagu gaaray meelaha abaaruhu ka jiraan oo dhan in wax la gaarsiiyo sidaas daraadeed maanta waxaan ku faraxsanahay anigoo guddigaas abaaraha oo qaran magacooda ku hadlaya in aan gudoomiyaha guddiga abaaraha ee gobolka Mudug aan ku wareejiyo 10,000 oo ka timid guddiga abaaraha oo qaran si ay ugu badsadaan muxuu ahaay kaalmadii awalba ay aroorin jireen oo ay meel walba gaarsiiyeen aan aad iyo aad uga mahadcelinayo tan aan filahayo inta ugu dambaysa inay ku dhameystiri doonaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin Suldaan Maxamed Jaamac Joonle oo ah gudoomiyaha iyaga iyo Suldaan Maxamed Cilmi Calas oo ayaguna kamid ah hoggaanka firfircoon oo guddiga gobolka Mudug uu leeyahay oo runtii ay nagu hoggaamiyaan inaan maanta ku guuleysano inaanu dhowr iyo 10 degmo muxuu ahaay tuulooyinka hoos yimaada aan muxuu ahaay biyo iyo raashin wada gaarsiino runtiina ay farxad noo tahay markii aan u dhameystirnayna roobkii noo daay raxmadda Ilaahay waa farxad gudoomiye ku soo dhawo waxa weeyaan account-ka waxay ku soo dhacday Salaam Bank 10,000 bay ahayd lacagteena suldaankan ku wareejiyay iyo guddiga abaaraha waqtay Aasha Geelle oo kamid ah guddiga abaaraha gobolka Mudug halkan waxa maanta taagan guddigii abaaraha gobolka Mudug ba halkan taagan isugu yimid ma sha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala intii hore aan soo qabanay Ilaahay naguma fashilan meel badan wax baan gaarsiinay guul baynu ka gaaray way ka fiicnayd in laga seexdo dalka iyo wixii la qabtaa qiimo badnaa ilaahayna hadda roob waa keenay oo meel badan baa hadda waxana waxa weeye baahidii dhibkii xoogaa ka degtay oo laga fiican yahay sidaa daraadeed lacagta 10,000 oo ka timid macnaha waxa weeye guddiga qaran ka timid waan la wareegnay annagoo ah guddiga gurmadka abaaraha gobolka Mudug anigoo ah Suldaan Maxamed Jaamac Shire ahna gudoomiyaha guddiga geeska xagga iga taagan yahay Suldaan Maxamed Cilmi Calas sidaa daraadeed inta geesaha iga joogtaan guddiga ay tahay waa mahadsantihiin intii lacagta soo aruursay intii keentana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ajar iyo abaal ka siiyo aad baan u mahadsantihiin waana la wareegnay lacagta waana haynaa insha Allah hadii la yiraahdo waad mahadsantihiin